wax badanna waa la sii qaban doonaa insha Allah tacaala haddii ilaahay yiraahdo qayb weyn ayay ka tahay barnaamijka waxbarashada ee qarankeena waxbarashada dadka baahiyada gaarka ah qaba waxaan jeclahay inaan dhalinyarada u sheego kow ummad kasta waxa ay leedahay adduunyadu waxa ay ku leedahay cinwaan adduunyadu waxa ay ku leedahay wax iyada haybteeda ah identity-geeda ah marka adduunyadu waxa aanu ku leenahay hayb la yiraahdo hayb Soomaalinimo ayaynu ku leenahay haybta kale ee waxaas oo dhan ka sokayso adduunyada agteeda lagama aqoonsano adduunyada inta u tagtid aniga reer xaafad Hiblaayan ah aniga reer Waabariyaan cid ka yeelayso adduunyada kaaga aqoonsanayso ma jirto aniga reer Hebelaan ah cid kaaga aqoonsanayso ma leh haybta kaliya ee lagu aqoonsanayo waa haybta Soomaalinimada haybta Soomaalinimada waa inaan ka dhignaa marka hayb qaran inaynu ka dhigno way ummadda aanay dadkeedu lahayn hayb qaran aanu lahayn adduunyada kamid ma noqon karto saadaradeed marka ay dadku cararaan oo haybtooda qaran ay lumiyaan oo haybab kala aadaan adduunyada kale markay tagaan lagama yeelayo haybtoodii lagama yeelayo reer Hebelaan ay haddaad Ingiriiska tagto waxaa lagu dhahayaa Soomaali ma tihid miyaa qaran ma lihid miyaa haa qarankeena qaran ku ah lagu dhahayaa laga yeeli maayo maya anigu adduunyada qaran aan ka tirsanahay ma jirto cid ka aqbalaysa lama arko saadaradeed waa inaynu ku mintidnaa khaladkii dhacayna aynu ka soo laabanaa haddii aad dhaxasheen khaladka dhacayna wuxuu ahay in qarannimada la dumiyo ayay ahayd haddii qarannimada la dumiyo cidna aqoonsanaysa lama arko meel adduunyada boos aan ku lahaanaynana ma jirto cidda marka la rabo inay dhaxalka qaado oy qarannimada soo celiso oo haybta qaran ay samayso dadka dhalinyarada ah waxaan aad iyo aad u rajaynayaa in arrintaas aad loo fahmo haddaan ku guulaysano haybteena qaran inaynu samaysano waddan horumaray iyo ummad horumaray ayaa noqonaynaa adduunyadana boosaan ku yeelanaynaa haddii aan hoos sii aadno oon haybta qaran ka tagno oon midda qabiil iyo midda qoys iyo midda gobol iyo midda xaafadeed meelaha aynu aadno hoos baan sii tegaynaa korna uma soo kacayno siyaabaha lagu guulaysto marka waxaa ka mid ah inay dad u kacaan dadka dhalinyarada inay u kacaan inay diidaan in hoos loo dhigo inay raadiyaan oo ay ogaadaan waxa macnaha ay ku leeyihiin qarannimadu inay tahay qarannimadaas in la doono qarannimadii marka waa la afduubay waxaa la gaaray in waddankeena cinwaankiisa uu noqdo burcadbadeed oo markaad tiraahdo adigu yaa tahay Soomaali lagu dhahaa maqoladii burcadbadeedka ayaa tahay way ku guuleysteen dadkeena iyo dawladdeena in la tirtiro burcadbadeedka sheekadooda wax sheegaya ma maqasheen way dhamaatay waxaa marna lagu calaamadeeyay Soomaali baa tahay markaad tiraahdo in lagu yiraahdo maqoladii argagixisada iyo al-shabaabka iyo qaraxa iyo balaayada sameeynaysa oo si gaar ah lagu fiiriyo xataa dad baasaboor kala wadato oo meel gaar ah lagu xiro oo si gaar ah lagu baaro laakiin taas waxaynu joognaa marxaladihii ugu dambeeyay waynu ka gudbaynaa argagixisada waa tirtiraynaa insha Allah tacaala uma ogolaanayna qarankeena inuu qeexo inuu cinwaan u yeelo qof aanan u qalmin heebteena qaran inuu ku faano qof aanan u qalmin